السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkayga Somali Code. waxaan u socday casharo ku saabsan social media. waxaan sameynay messenger ayaan sameynay message-ka uu qofka kaga soo dhacayo. waxaan kaloo sameynay image-kii waan ku soo darnay sida image-ka loo soo upload gareeyo. waxyaabo badan ayaan sameynay. marka maanta waxaan qaadanaynaa message-ka sida loo sameeyo. message-ka hadda message-ka kan waxa way static weli dynamic ma dhigin. qofka user-ka ah message-kiisa halkaas ka soo baxaya. qofka kale oo saaxiibkiisa u soo dirayana halkan ayay ku soo baxaya. image-ka dadka inbox-ka waxa uu soo dira xaga kan saasita noqon doonaan numberka xaga numberada ka soo bixi doona inta message u yaala ayay noqon doonaan. halka kanna waxaan ka soo saari doonaa message-ka qofka soo dira. marka waxaan sameynay search only messages ama search user. waxaad raadinaysaa user-ka ama message-yada tan ayaa raadinaysaa. marka waxaan sameynaynaa marka qaabka aan u sameynay inta tan wax fog oo wax badanna ma aysan aha. haddii uu telefoon xataa yahay saatan ayay noqonaysaa wax qarsoomaya. markay saas tahay tan waa qarsoomaysaa kanna waa qarsoomayaa. markay saas tahay falaar ayaa arkaysaan. falaartaas ayaad ku dhufanaysaa. halka ka marka waxa kaaga soo baxaya saatan ay noqonaysaa. halka waxa kaaga soo baxaya inbox-kii qofka. inbox-ka markuu u baahan yahay buu iska dhufsanayaa meesha message-ka u yaalo ayuu message ku tagayaa. haddii kale hadduusan u baahan xakan close-ka iska close gareynayaa. saas ayay noqonaysaa message-kii. hataa wuxuu u diri karaa qofka qosol iyo emoji-yaal ayuu u diri karaa. marka waana responsive markaan ku leeyahay wax weeye device walba wuu qaadan karaa. marka waa kaas hadda marka saas dhaho uu soo baxaya kana soo baxaya waana ka celi karaa oo kaas. marka saatan ayay noqonaysaa markuu telefoonku weynaado. marka waxaan u baahanahay qaabkee u sameysay ayaa taala. marka xaga kan qofka name-kiisa ayaa ka soo bixi doona. qofka user-ka marka ku dhufatid u dhufatid halkaana magaciisa ka soo bixi doona iyo picture-kiisa soo picture-ka wata ama qofka halkaas ka raadin doontaan. marka waxaan sameynay code-ka hadaan ku noqono waxaan sameysanay message.php baa la yiraahdo. waxaan sameysanay div la yiraahdo container float oo wuxuu noogu xirmayaa halkaas. script yar baan ku darnay javascript ah waxaas dhan waan sharxi doonaa. sida caadiga ahayd waxaan halkan ku soo xiranay bootstrap-kiina ayaan isticmaalnay messages oo ah messages-kaas halka yaala. access-ka center iga dhig baan ku yiri color-kana success iga dhig cagaar iga dhig. waxaan geliyay well heading waxa way class la isticmaalo oo ku jira bootstrap wuxuu ku siinayaa in uu ku geliyo container-kaas uu ku geliyo. marka waxaan ka soo xirtay arrow oo falaartaas oo ah markii uu yaraanayo baalku markuu yaraado xagga arrow ka soo baxaya. taas ayaan meesha ku xirnay. marka class baan u sameystay. class-ka ay la aragtaan display none baan iraahday oo kaas display none baa yiri marka hore waa qariyay. marka div arrow waan sameystay iyo div user message. user message-kaas waxa weeye waa inbox-ki weeye. inbox-ki baan sameystay waxaan gashtay this one oo waxay tahay markii uu yaraado oo saa u dhaho xaga baasha kaaga soo baxaysa. taas weeye taas ayaa xaga ku soo xirtay. isagan waa display-nin markii telefoonku uu weyn yahay markuu soo yaraado ayuu soo baxaya oo waliba on click la siiyo falaarta. marka inbox baan ku soo xirtay div person ah search message oo search-ka kan baan sameystay. form baan sameystay. formku waa kaas inta kaliya weeye waa search. intaas ayaa formkiga dhamaaday. halka kan waxa weeye image iyo name-kaas iyo page-kaas halkaas ah. inta waxaan iri baan dhex geliyay image-ki ayaan geliyay oo image-ku waa kaas
span baan furtay name person baa yidhi oo namekii qofkaan geliyey waa nameka waa kaa span kalaan geliyey class la yidhaahdo patch oo bootstrapku leeyahay baa jira oo waa bahalka kan xagga gawaabintaas oo marna waa kaas marna waa kaas marka waxaan dhex gashay tiro tree la yiraahdo style waxbaan u sameeyay oo gudihiisa background-ka ka bedelay waxyaabo noocaas ah marka asagii waan soo celceshiyay sababtoo ah saas way loop noqon doontaa insha Allah page markaan ku xirno loop noqon doontaa saas u raaci doonaan marka message-ka hadaan tagno waa inaan message-ka aadno message start halkan way code badan ma qorin ee waxa kana aad arkaysaan saa u qurxiyay style-ka kaliya way laakiin code soo yiriyaa different semester message area waxa way meeshaas gareega ah oo dhan weeye waa meesha message ka soo bixi doono waxaan samaystay laba different semester midna la yiraahdo left chat fetching midna right chat fetching oo waxa kala yihiin waa friendly iyo user-ka marka online-ka oo qofka la sheekaysanaya oo kala qaybiyay marka waxaan iri span baan geliyay span-ka waxa ku jira lorem kan waxa weeye waa text lama akhri karo laakiin waa text laga helo Google-ka oo iska diyaarsan marka waxaan iri time-ka halkan geliyay time-ka flow rate baan iri marka clear post baan isticmaalay Susan haddii aan clear post ka qaado clear post markaan ka qaado kan meelaha kan ayuu imaanayaa marka clear post wuxuu ilaalinayaa in uu ku jiro container-ku ku jiro ama content-ku ku jiro inuusan ka bixin midka kale sidii aan soo koobiyay isla intii kale aan iri laakiin design-ka la yiraahdo left chatting aga marka timaadid left chat waxa iri follow left ma iri waxaan iri background baan siiyay oo background-kaas color-ka noocaas aan siiyay wordsiga automatic baa iri sababtoo automatic waxa uu iri device walba markuu noqdo uu qaadanaya qaab walba markuu noqdo iska qaadanaya kaas mana cayimin wordsiga font family monospace baa iri farta qaarkaas noocaas aan jeclahay fartaas ayaan doontay height-ka automatic baa iri color baan siiyay display block baa iri margin bottom padding baan siiyay border radius baan siiyay oo waa kaas wareegsan inta saa u wareegsan weeye okay kan kalena isla intii baan siiyay kaliya laakiin waxaa iri float rate iyo background-ka ka bedelay oo ah background-ku ah color-kaas marka intaas ayay tahayba waxaan sameynay marka aadno form different sameysanay oo ah meesha message-ka lagu qorayo xagga iyo emoji-gaas aan ugu soo darnay sidaan hore u soo sharaxnayba different form-ka waa kan diff wuxuu ku jiraa laba kol baan kala siiyay midna waxa weeye meesha qoraalka waa text message editgiisa iyo wada waa chat midna waxa weeye call to oo submit-ki weeye marka waxaan sameeyay chat-ki waxaan iri emoji area-da ayaan soo gashtay marka saas weeye marka kale arrow-ga markaan click siiyo markuu soo yaraado arrow-ga markaan click siiyo isoo saar baan ku iri user image oo box-kan inbox-kaas oo dhan ah isoo saar and fade in arrow inbox-ka hide garee baa iri marka saas tirahdid wuu hide gareynayaa hide garee baa iri close inbox-ka oo bahashaas ah waxaan iri display block isoo saar kan kale marka waxaan iri close-ka kan markaan ku dhufto baa iri ilaali user page-ku saas oo kale refresh igu oran ilaali user message fade out baa iri kan marka hore muxuu ahaa fade in haddana fade out baa iri iga saar arrow inbox-kana display block ida baan ku iri kan marka hore maxaa iri hide ida baan ku iri waa hide gareeyay marka kana waa soo saaray that's it wax kale ma sameynaan
insha allah waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe siisid. waxaan kaloo kaa codsanayaa in aad la wadaagtid asxaabtaada. please like see haddii aad ka heshay. commentiga waxaad ku qabtid su'aalo inaad igu soo weydiisid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.